السلام عليكم أصحابتا ku xiran jeel xirfad ku soo dhawaada muuqaal cusub kaasoo aan ku soo gudbin doono signal robot aan dhawaan idin shaaciyay kaasoo aad ku isticmaali karto Pocket Option halkan muddo waan ka maqnaa mashquul aan galay awgeed maanta waxaan halkan ku soo gudbin doonaa oo aan idin faahfaahin doonaa sida signalkaasi loo iibsanayo signalkan waxaa la yiraahdaa VFX sida halka ka muuqata application kaas oo marka hore aad website ahaan u isticmaalayso marka qaabka loola soo degayo iyo qaabka loo isticmaalayaba waxaad ku daawan doontaa muuqaalkan marka aad dhamaysato haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad hore noola joogtayna muuqaalkan like saar si uu gaaro asxaab badan haddaba haddii aadan aaminsanayn in online-ka lacag laga sameeyo waxaan ku tusi doonaa bisha lixaad ee aan ku jirnay sanadka 2024 lacagtii iga soo gashay internetka waxaan geli doonaa kuukaynteena ayaan geli doonaa halkan waa lacagihii ay soo galay marka aan wada ahaan isku wada geeyo lacagihii soo wada galay hadda kuukaynteeda waxaa ku jira lacag $399 ayaa ku jirta laakiin hadda waxaan tusi doonaa dhaqdhaqaaqaygii bishan iyo lacagahan internetka ka sameeyay ee soo galay marka lacagta aan internetka ka sameeyay marka laga soo bilaabo halka waxaad arkaysaa bishii lixaad lixdeedii waxay soo galay $15 lacagtani waa Sweetcoin iyadoo ma tirsanayo haddana waxa halka Sweetcoin kale lacagtan waxa iyaduna u diro waan la baxay iyaduna marka iyadana ma sheegayo marka dhammaan lacagahan halkan ma arkaysan iyaduna waa lacag soo gashay oo $103 xagan kale waxay soo galay lacag kale oo iyadana $270 halkan waxay soo galay iyadana lacag $18 ayay soo gashay halkan kale waxay soo galay lacag $687.47 halkan kale waxa ay soo galay lacagaha iyaduna waa Solana iyo lacag aan iibsaday halkan waxay soo galay lacag $409 lacagtan waa la baxay iyada imi soo gelin halkan withdraw kale oo lacag kale aan la baxay iyaduna marka lacagaha dhamaantood way soo wada galay marka aan isku geeyay wadar ahaan marka isku wada geeyay lacagta bishaas oo kaliya aan sameeyay markaan isku wada geeyay waa $1208 marka isku wada geeyay online-ka haddii aanad aaminsanayn waa meel aad lacag ka sameyn karto si bila aad uga sameyn karto si sanadla aad uga sameyn karto labadii sano ugu dambeeyay waxaan xoojinayay in aan internetka lacag ka sameeyo haddaba muuqaalkeena maanta ayaan guda geli doonaa muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay signal robotana si marka signaladii aad soo weydiiseen ayuu kan hordhac yahay inkastoo aan soo wado qaar kale oo free haddii aad isticmaalayso laptopna aad ku isticmaali karto Pocket Option-keena oo application ahaan aan kasoo dhigtay ayaan furayaa Pocket Option-keeni weeye kani dad badan ayaa istiraatiijiyadii maantadood aan soo gudbiyay ee ahayd fractal-ka ahayd ee lagu isticmaalayay ayay dad badan fahmi waayeen iyadana waan ku celin doonaa halkan ayaad furaysaa saddexda dhibcood waa saddexdan qaybood qaybta koowaad waa candle streak ayaa loo isticmaalayaa candle-ladii ayaa timeskeedii ayaa ku jira qaybtan labaadna waa indicatorska ayaad ka dooranaysaa marka qaybta candleska ayaan tagayaa candleskan ayaan ku dhuftay time frame-ka ayaan ku sii dhuftay 5 minute ayaan tagay dad badan ayaa lahaa ima soo baxayo casaanka yar iyo akhtarka sheegaya verticalku marka halkan saddexda dhibcood ayaad ku noqonaysaa indicatorka ayaa tagaysaa kadib waxaad tagaysaa fractal-kan ayaa dooranaysaa fractal-ka marka doorato kadib marka aad saa u doorato fractal-kii laba mid baan doortay hadda mid aan iska xidho kadib fractal-ka oo kaas casaankii iyo akhtarkii aad sheegaysay waa ka soo baxay kadib halkan ayaad ka dooranaysaa qalinka yar style-kiisan ayaad waxaad kala bedelaysaa qaybta sare ayaad casaan ka dhigaysaa qaybtan hoosena akhtar ayaad ka dhigaysaa kadib sidaas safe ayaad ku leedahay qaybtan RS-ka isagu laftiisa waxaad kala soo baxaysaa xagan saddexda dhibcood indicator-ka ayaad tagaysaa halkan ayaad ka eegaysaa waa kan qalin haddaan saarto oo kaas RS-ku wuxuu kuu sheegayaa suuqa jihada u socda haddii aan soo dhaweeyo isaga laftiisa waad yar qurqurxisan kartaa oo kacas baad ka dhigi kartaa one baad ka dhigi kartaa kuwan kalena waxaad ka wada dhigi kartaa 2bx ayaad ka wada dhigi kartaa kana 2bx si aad u aragto laymanka oo kuwaas hadda si fiican isagina waxa uu taagan yahay xagga hoose haddaba istiraatiijiyadan si loo isticmaalaa istiraatiijiyadan hore ayaan ku sharaxay hadda maanta waa maalin axada casharkan aan duubayo waana maalin ay maqan tahay qaybta forex-ka marka lacagaan currency-gu waa laba currency-ga hadda aan joogo waa laba oo arkaysan lacaga OTC ay ka horeyso
iyo lacag ay ka dambayso aanay OTC la socon. maanta marka waa maalin axada forex-ka dhamaantii wuu xiran yahay oo arkaysan lacagtii bila OTC da oo dhan way xiran tahay oo kuma shaqeynayso. broker-kan wuxuu isticmaalaa lacag isagu uu samaystay oo la yiraahdo lacagtii ay ka dambeysay OTC du. lacagtan broker-ka ayaa iska leh waana lacagta ugu loska badan leh marka aan isticmaalayo pocket option-ka, waayo waa lacagta dad badanna ay loska aad uga cawdaan. waxaa jirta lacag bitcoin la yiraahdo iyadana la isticmaali karo oo OTC la socoto iyo mid aanay OTC la socon. hadda waad arkaysaan lacagtii OTC da aanay la socon oo dhan way xiran tahay, waayo maanta waa maalin axada waa muuqaalkan duubay inkastoo aan jecelahay inaan beri oo isniinana muuqaalkan qaybtiisa. marka hadda waxaan dooran doonaa lacagahan ayaan dooran doonaa mid suuqa si fiican u socota. hadda waa arkaysaan hore waxaa idigu sheegay markuu after hire soo baxo oo se candlekaasi dhamaado suuqu wuxuu noqonayaa kor, laakiin hadda halkaas suuqu hoos ay uga soo noqday kadibna wuxuu ku xigsiisay candle kale oo baaya kadibna suuqaasi waxa uu socday kor. sidaad arkaysaan marmarka qaar saas way dhacdaa laakiin badan kama badna oo marmar bay dhacdaa. hadda waa arkaysaan suuqan candlekiisii hore wuxuu ahaa sell ayuu ahaa, wuxuu sheegay inuu suuqaasi hoos u daadanayo. sidaa arkaysaan halkan kale waxaa arkaysaan candlekan inuu markii uu soo saaray uu ku xigsiistay candle kale oo 5 minute ah. halkan timeka waxaad ka dhigan kartaa 2 minute iyo 30 second ayaad ka dhiganaysaa. lacagta aad ku galaysaan adiga ikhtiyaar u leh taad ku galayso iyo taad ku bilaabayso, inkastoo hadda deemadii ku jiro. muuqaalkan waxa aan ku faahfaahin doonaa qaybtiisa dambe qaabka loo iibsanayo signalka. marka signalka ayaan ku tusi doonaa hadda oo aan geli doonaa istiraatiijiyadiisa. signalkan istiraatiijiyada hadda aan isticmaalo waxaan tagaysaa marka ugu horeysa 3 dhibcood. halkan candleska ayaan wax ka bedelaya, halkan waxaan ka dhigayaa 10 second. inkastoo aan lacagtii aan ku isticmaali lahaa ay xiran tahay, haddana waxaan kugu tusi doonaa lacagta OTC da. marka waxaan geli doonaa halkaas waan dhamaystirnay. halkana waxaan ka dhiganaa 1 minute, waayo markii haddii aan ka dhiganay candlekii 10 second ba aan ka dhignay hore ayuu shaqeynaa. geli doonaa robotka. sida arkaysaan robotkan waxaa la yiraahdaa VFX. waxaanaad kala soo degi doontaa muuqaalkan marka halkan aad soo gaadho. wixii ka dambeeya ayaan kugu sharaxayaa qaabka loo isticmaalo iyo qaabka loo iibsado, inkastoo uu laba qaybood u kala baxo, qayb free ah iyo qayb lacaga. hadda weli ma iibsan sida arkaysaan oo wuxuu markaana iibsan qaybtan sare ayuu ii soo dhigaya, wuxuu leeyahay qaado liisan oo iibso ayuu leeyahay. marka hadda isaga ayaan sharaxay, isaga markasan ayuu kugu furmaya marka application ahaan ula soo degto. qaybtan 3 dhibcood waa qaybta lacagaha laga doorto. qaybta hadda aan joognaa waa lacagta OTC da ayaan ka joognaa 5 minute. marka 1 minute ayaan ka joognaa. labada lacagood waa forex OTC oo trading ku jirta iyo reversal. marka labadan ba waad kala dooran kartaa. waxaad oran kartaa ma trading, iyadoo trading ku jirta oo socota ayaa doonaya suuqa inaan galo oo aan raaco candlekii oo kor u socda ama hoos u socda, ama waxaan doonayaa candlekii oo reversal lagu sameeyay oo halkii laga soo kala celiyay oo kale ii tilmaama halkaan suuqa ka gale. ayay labadaasi u taageen. halkana waa marketing, inkastoo marketingku hadda uu xidhan yahay. saa arkaysaan halkan quful baa saaran oo marka lacag aad iibsato kadib uu kaa furmaya, laakiin qaybtan maanta way xiran tahay oo axada oo qaybta forex-ki oo trading ah ku jirta iyo reversal. labadana isaguna uu leeyahay iyadoo trading ku jirta ayaan doonayaa inaan suuqa raaco, mise iyada oo suuqa 5 minute baa ka dhigan kartaa. marka 1 minute baan hadda ka dhigay. marka qaybta OTC da ayaa hadda furan. marka qaybta OTC da ayaan eegaynaa bal inuu xagad fursada naga siiyo. wuxuu naga siiyay OTC da waxa furan USDGB dooro ayuu ku leeyahay. marka US waxaan tagi doonaa pocket option-keeni. hadda way xirantay durba waayo lacag ma siisan, marka weli way furan tahay. wuxuu ku leeyahay USDGB 3 dhibcood waxay sheegayaan in 3 dhibcood in ay kacsan tahay oo ay kor hoos u socoto. casaanka yar wuxuu sheegayaa inaad hoos u galayso. halkan kale waxaad ka dooranaysaa suuqa inaad soo ogaato 100% wuxuu marayo 100% lacagta. marka hore waa igu sharaxay haddii 70% iminka taa lagu galo waxa lagu siinayaa halkii dollar waxa lagu soo raacinayaa 70 senti. halkanna haddii aad ku gasho tan 92 ka maraysa waxa halkii dollar lagu soo raacinayaa ee aad ku gashay $1 iyo 92 senti. hadda USGB ayaanu eegaynaa inay sida uu sheegayo hoos ay u socotaa ayuu leeyahay. timekii ayaan kordhisan doonaa. timekana waxa 1 minute ayaa lagu galayaa buu ku leeyahay. marka isna waxaan geli doonaa pocket option-keena.
optionkeena ayaan soo galnay, waxaan soo dooranaa lacagta uu noo sheegay halkan aan kusoo arkanay oo ahayd aan baarana lacagtii furnayd oo ahayd USD GB oo tan waxaan saaranaa xidig. Marka xidig saarato, xidigtu waxay kuu fududeynaysaa qaybtan xidigta ayaa tegaysaa, marka lacagaha xidigta kuu saaran oo dhan baa xaggan kaaga soo baxaya. Hadda tanaan dooranayaa, waa lacagtu ii sheegay waxay u socotaa weyguda hoos sidii ii sheegay marka hore, oo arkaysaa in lacagtan hoos u socoto sidii uu sheegay isagu. Marka hoos ayaan u gelaynaa, waxaan ku galnay 1 minute, waxaan eegaynaa bal inaan lacagtaasi ku guuleysano maadaama uu sheegay in lacagtaasi hoos u soconayso. 1 minute iyo 5 second ayaaba halkan inoo dooran, laakiin lacagta hadda way wareegtay oo kor ayay u socotaa sidii sheegay markii hore. laakiin markii hore sax bay ahayd, waayo innaga ayaa habsaanay. marka lacagta hadda ma furna oo way xiran tahay. marka halkan ayaad ka iibsanaysaa. marka aad iibsato dhammaan qufulka ayaa ka qaadmaya, sidaa awgeed iminka qayb free ah ayuu ku siinaya oo 2 midh ah oo tan mar labaad ayuu soo noqday. hadda wuxuu leeyahay suuqu kor ayuu socdaa, marka kor uu socdo oo kale ayaad ka gaarsiinaysaa oo aad gelaysaa. hadda kor baa u galay, waa arkaysaan. taasoo kale markii aan ka gaarsiiyo oo arkaya markii aan ka habsaamay hore ayay ahayd taasi, laakiin markii aan ka gaarsiiyey oo arkaysaan sidaas aan weyn ku geli doono insha Allah. markaan iska sugno, tii hore los ayaan galnay waayo innaga habsaanay, laakiin tan hadda waan ka gaarsiinay isla markii uu inoo sheegay in suuqu kor u socdo. marmarka qaar los waad geli kartaa, laakiin ma badna loskiisu marka aad iibsato. waxaan ku tusi doonaa istiraatiijiyada dhowr ah oo aan u isticmaalay robotkan. hadda bal timeka eegno, wuxuu marayaa 25. waa arkaysaan in suuqi kor weli usii socdo, sidaa aan rajaynayo waxay noqon doontaa win insha Allah, waayo wuxuu inoo sheegay signalku inuu suuqani kor u soconayo. waa arkaysaan in saa ku guuleysanay. robotka saas ayaad u isticmaalaysaa, inkastoo qaybta imika aan isticmaalay ay tahay qaybtii freegii. marka hadda kadib waxaan iibsan doonaa robotka saa ula socda. haddaba sidee ayaa loo iibsanayaa robotka marka aad doonayso inaad iibsato? marka ugu horeysa doonayso marka robotkan ama signalkan inaad iibsato FVX, linkigan iska diiwaangeli. linkigan oo yaala muuqaalkan aad daawanayso hoostiisa. marka linkiga ayaan hadda raaci doonaa. kadib linkiga markaan raacno waxa uu nageyn doonaa wajahada ugu horeysa ee website-ka ayuu nageyn doonaa. marka halkan ayaan leenahay star, kadib star markaan nidhaahno sana ayuu noogu soo kacayaa. kadib marka uu inoo soo kaco waxaanu bilaabi doonaa inaanu iska diiwaangelino. marka halkan ayaad iska diiwaangelinaysaa anigu marka hore ayaan iska diiwaangeliyey. marka login ayaan hadda leeyahay kayga hore, kadib marka kayga ayaan hadda anigu gashanaya kayga aan hore iskaga diiwaangeliyey. markaan soo galo oo ka hadda gmailkayga ayaan geliyey, sana ayuu kuugu soo kacaya. marka anigu gmailkaan gashaday, adiga laakiin waa isdiiwaangelinaysaa. adigoo isku diiwaangelinayaa gmailka ku samaysatay Pocket Option. marka hadda waxaan tegi doonaa storage, qaybta storage-ka ama tegi doonaa, ama qaybtan ayaan tegi karnaa. marka halkan ayaan tegaynaa, waxaan leenahay download. marka download baan la soo degaynaa. marka application ahaan ayaan kula soo degaynaa. marka get baad leedahay Play Store haddii aad u baahan tahay. marka Android aad isticmaalayso, haddii aad iPhone isticmaalaysana waxaad ku qoraysaa intan, waxaad ku qoraysaa ciwaanka magaciisa ayaad ku qoraysaa. markaad la soo degto qaybta kala soo degto, hadda waxaan tegi doonaa qaybaha la iibsanayo. waxaan tegaynaa qaybta pricing ay ku qoran tahay, marka qiimayaasha si aan u ogaano qaybtaan iibsanayno. anigu markii ugu horeysay qaybtan horta waa isdiiwaangelin, waa iska free iyadu. laakiin dhammaan waxa kuu furan oo kaliya forex signal, 2 signal oo forex-ka aad ku qaadan karto qaybta forex-ka ku shaqeysa. qaybtan tasti ayaa la yiraahdaa, waxaa laga siinayaa $25. laakiin markaan promo code ku siiyo aad ayay hooseynaysaa. promo code-kaasna waxaa kugu soo diri doonaa WhatsApp-kaaga, waxaad ku soo diri doontaa Telegram-kayga weyn, halkaas ayaad ka helaysaa promo code-ka. marka qaybtan iyaduna waa $99, laakiin marka promo code aad isticmaasho intan way ka hooseynaysaa. qaybtan waxay kuu shaqeynaysaa 30 cisho, qaybtana iyaduna lafteedu waxay kuu shaqeynaysaa waa bil. qaybtan ayaa ugu fiican oo ah qaybtan kuula talin lahaa inaad iibsato,
waxaa la siinayaa 199 laakiin marka baramokoorkan isticmaasho waxay noqon doontaa meelaha $80 ama $79 ayaa laga siinayaa waxaana ku shaqeynaysaa 12 bilood ayuu liisankeedu ka dhacayaa inaad isticmaasho qaybtan iyaduna waa unlimited marka iyadu waa 3 sano oo goowa ayaad isticmaalaysaa laakiin lacagteeda ayaa badan laakiin qaybtan haddaad doonayso marka application ahaan ayaad ula soo degaysaa qaabkan oo kale marka applicationkii la soo degto qiimayaashana iska soo hadda log out ayaad odhan kartaa laakiin waa website-kii ayaad ku jirtaa laakiin qaybta applicationka ayaan geli doonaa iyo sida uu inoogu soo degay Android markaa isticmaalayso application qaabkan ayuu kuugu soo degi doonaa kadibna qaabkan ayuu kuugu furmayaa haddaan iska xidho anigu hore ayaan u galay wakaas qaabkaas oo kale ayuu kuugu furmayaa laakiin halkan adigu waxba halkaas linkiga markaas ka soo diiwaangeliso mar labaad isma diiwaangelinaysid halkan baad login leedahay waxaad gelinaysaa Gmail-ka aad kusoo samaysatay iyo passwordkiisii waa in marka hore aad iska soo hubiso aad iska soo saxdo marka hadda kaygii ayaan geli doonaa hore ayaan isku diiwaangeliyay anigu markaa kii aan isku soo diiwaangeliyay ayaan geli doonaa oo arkisan sidaas ayuu igu soo kacay marka shaashadan ayaan ku sharxi doonaa shaashadan halkan saddexda dhibaad ay ku qoran tahay waa halka lacagaha laga bedelo lacagta market ay ku qoran tahay waa lacagta bila OTC ay la socoto waana ku tusi doonaa qaybta booked option ayaan ka tusi doonaa qaybtana waa qaybta OTC la socoto haddii aad doonayso inaad ku diiwaangeliso marka haddaad doonayso inaad isticmaasho 1 minute haddaad doonayso oo kaliya in signal ku siiyo lacagta 1 minute jihada ay u socoto marka jihada OTC dana 1 minute haddaad doonayso 5 minute haddaad doonayso dhinaca suuqa u socdo intaas ayuu ka saxaya waa dashboard iyada lafteeda waan isticmaalaa qaybtana waxaa lagu soo siinayaa laba lacagood oo kuwa ugu fiican ay had isticmaali karto lacagna aad ka samayn karto kuwaas kadib waxaad imika tijaabin doonaa USD GB iyo GB USDT labadaba waan tijaabin doonaa qaybtan waa broker laakiin kugulama taliyaan halkan waa halka aad ka bedelayso kolba brokerka aad isticmaalayso halkan sare ayaa tegaysaa haddaad isticmaalayso booked option iyo haddii aad isticmaalayso QX tagaska laakiin imika broker waxaan isticmaalnaa booked option inagu kadib booked optionka ayuu inoo soo dhigaya wuxuu leeyahay Gmail-kaagii iyo passwordkaagii geli wuu ku diidi doonaa laakiin waan ku tusi doonaa qaabka labadana loo saxo marka booked optionkii aad kusoo samaysatay haddii aad istira halkan geli ma gelinaysid waayo wax badan ayaa laga rabaa shuruudo badan oo iyagu rabaan laakiin anigu taas kuwama taliya inaad samayso kaliya signalkan mobilkaaga ku shubo is-agdhig halkaa ka trade gare hadda lacagahan dhammaan way kuu furmi doonaan markaad iibsato marka haddaba sidee loo iibsanayaa ayaan gudageli doonaa marka halkan ayaad ku dhufanaysaa markaad applicationka lasoo degto kadib halkan markaad kusii dhufato kadibna qaybtan ayaad tegaysaa hoose ay ku qoran tahay Visa, PayPal, Mastercard iyo crypto intaaba waad ka iibsan kartaa macnaha ayaa laga wadaa kadib markaad dhammaan kuwa geliso kan qaybtii markii aan ku tusayay price-ku ay ku qornayd waa isla iyadii marka qaybta koowaad waa tasti oo $39 baa laga siinayaa laakiin markaan promo code ku siiyo waxa aad ku iibsan kartaa wax ka yar $15 marka mid kasta qiimaheedu hoos u dhacayo ku imanaya marka tan ayaan kugula talinayaa inaad iibsato marka buy halkan tiraahdo promo code ayaan gelin doonaa marka waxaad ku iibsan kartaa haddii aad isticmaasho Binance iyo wallet leedahay walletkaaga ayaad ku iibsan kartaa haddaad Payeer isticmaasho Payeerkaas ayaad ku iibsan kartaa haddaad Perfect Money isticmaasho Perfect Money ayaad ku iibsan kartaa haddii aad Visa iyo Mastercard iyo Card isticmaashana kaararka ayaad ku isticmaali kartaa halkan marka promo code-ka aan ku siinayo ayaad gelin doontaa oo qiimaha ka dhimaya marka qiimaha uu ka dhimayo marka hadda Perfect Money haddaad doonayo inaan gashado Perfect Money ayaan dooranayaa kadibna halkan waxaan soo gashanayaa promo code-kii aan kuu soo diray ee aad ku iibsan lahayd promo code-ka marka aan geliyo halkan ayaan odhanayaa apply promo code-ka hadda waan qariyay laakiin markaas aad u baahan tahay waa kuu soo diri karaa haddii aad doonayso inaad iibsato marka apply ayaan odhanayaa promo code-kii ayaa laga xaqiijinayaa inaan gashaday marka lacagtii way qiimaheedii hoos dhacayo ku iman doonaa intii hore ma ahaan doonto markii hore qiimaheedu intaas ayuu ka yaraa intan hadda qiimaheedii hore intan ayuu ahaa qiimaheedii wakaas hore wakaa $109 baa la siinaya haddana waxaa laga siinayaa $76 oo keliya ayaa laga siinayaa marka Perfect Money halkan ayaan leenahay Play Now ayaan leenahay kadib Play Now markaan nidhaahno wuxuu toos noo geyn doonaa
perfect money ayuu toos inoo geyn doonaa. Marka perfect money toos inoo geeyo make payment ayaan leenahay. halkan waxaan gelin doonaa member ID-geeni sidii perfect money marka lacag loogu shubanayo oo kale. halkan password-ka ayaan gelin doonaa. halkan waxaan gelin doonaa lambarkan ayaan gelin doonaa. kadib inta marka aan dhamaystiro sidaas ayaan ku iibsanayaa oo aan ku dhamaystirayaa. marka aan dhamaystiro waxaan ku tusi doonaa intaanan iibsan bal qaabka ay markii hore ahayd iyo marka aan iibsaday qaabka ay noqoto. markaan aanan iibsan sidaas ayay tahay. wuxuu leeyahay listen to bro iibso ayuu leeyahay. marka waxaan iima soo dhigayo kadib qof walba iga wada saaran. kadib markaan iibsado sidan ayay noqon doontaa insha Allah. la socdo dhammaan qofladan way iga wada istaagi doonaan. marka qaabkaas ayaad iibsanaysaa. baramakoorka ayaan ku siinayaa sidaas ayaan ku dhamaystiraysaa. markaan iibsado kadib waxaan ku tusi doonaa qaabka loo isticmaalayo ee pocket option iyo isaga la isku isticmaalayo. way iibsan doonaa hadda. marka halkan waxaan gelin doonaa member ID-ga aan ku geliyay. halkan waxaan gelin doonaa password-kayga ayaan gelin doonaa. kadibna halkan form-kan ayaan buuxin doonaa waayo waa sir oo kuma tusi doono waayo waa qaabkii iyo password-kayga aan ku geliyay perfect money-gayga. perfect money-gayga aan ku geliyay kadib waa sir oo kuma tusi doono. marka waa isdhaafay lambarkan xaggan ayaan gelin doonaa. soo arkaysaan wuxuu leeyahay gmail-ka aad ku samaysatay ayaan kuugu dirnay.